madaxweyne farmaajo ilaahay baa mahad iska leh. maxaa kuu diyaarsan soo ma ogid in xilligii doorashada ay soo dhowaatay soo ma ogid in xilka aad hayso in lagaa tuuro looga tashanayo hotel jaziira go'aanno culusna laga soo saaray kollay hadda u malayn maayo inaad hurdee maxaad haysaa oo kaaga diyaarsan doorashadan oo aad dadka ka gadi kartaa soo ma doonaysid inaad 4 sano oo kale aad sii joogto filla Soomaaliya laakiin xasuusnow farmaajow xilligan ma aha sanadkii 2016 oo kale oo dadkii Soomaaliyeed waxbay fahmeen laakiin markaas waxaad isku tilmaantay kuna awrkacsatay wadani waliba Itoobiyaanka nacab al-shabaabka ka saaraya Soomaaliya iyo sheekooyin kale oo raqiis noqday markii lagu bartay kadib maxaad haysaa oo aad inoo sheegi kartaa si mar kale lagu doorto maxay tahay shaxda aad rabto inaad garoonka la soo gasho mise waxaad ku tashanaysaa wax aad qarsanayso madaxweyne farmaajo ma waxaad ku fakaraysaa in dalkan adiga aad leedahay oo dadka sidii aad doonto aad ka yeeli kartid maya farmaajo taasi macquul ma aha ee si dib lagu doorto hal kale keen mise guddiyada doorashada ergooyinka dhammaantood iyo xildhibaanada ayaad guulwadayaal ka soo wada dhigaysaa kadibna ku soo dooranayaan waa talo fiican oo macquul ah laakiin sanadka 2021 ma gadmaysa arrintaasi oo waad la soo dahday taladan balse qorshahan waxa uu gadmi lahaa sanadihii 80-maadkii mise waxaad haysataa qaacidada asiyaasi afwarqi ugu sheekeeyey ee ahayd in 30 sano ku dhowaad aysan doorasho ka dhicin dalka Eritrea maxayse tahay doorashada ay ku riyoonayaan Soomaalidu taasi oo waxaan dhici karin ee xal kale raadi farmaajo mise walaalka Abiy Ahmed ayaa kugu yiri anigaba dib ayaan u dhigay doorashada ee raadkayga oo kale soo raac halkaas sawtii uu shaqayn waayay oo ay Xaliimo Yaray laxan jilicsan oo aan gadmayn ay soo saartay suuqana la timid qorshahaasi oo ahaa qof iyo cod iyo sanad kadib ayaa doorashada dalka ka qabsoomaysa mise siyaasiyiinta u taagan inay kugula tartamaan xilka aad ku fadhiso miyaad u malaysay inay yihiin sida ra'iisul wasaare Roble oo marka uu jeedinayo khudbadaha uu kaga hadlaayo danahaaga gaarka ah khushuuca iyo weliba qanacsanaanta wejigiisa ka muuqata loo malaynayo inuu aayad quraan ah ama xadiis saxiix ah uu tafsiiraayo ma aha sidaasi siyaasiyiinta kula tartamaysa waaba haddii aad isa soo sharaxdeen waa dad intooda badan aqoon maaddi iyo mid diimeed kaa badan kaa aftahsan kaa shacbiyeed iyo taageero badan weliba kaa waaya aragsan markaas baad waxaad ogaanaysaa inay kula tartamayaan rag khushuuc iyo qanacsanaan midna ku haynin sida Roble oo kale waan kugu wareeray madaxweyne farmaajo inta aad ii soo sheegtay kuguma filna inaad ku sii joogto filla Soomaaliya 4 sano oo kale ee qorshaha kuu qarsoon ee sirtaha ii sheeg cidna u sheegi maayee cabdiyo waxaa la yidhi ceeb waa laba afbaroojise mana jiro qabri ceebeed ee miyaad ilowday wixii aan ka soo sameeyey baydhabo iyo dhuusamareed iyo kuraasta dhiigga leh ee ay ku fadhiyaan cabdicasiis lafta gareen iyo qoorqoor ma jirtaa cid igu ceebaysay dhacdooyinkaasi ama cid ku ceebaysay labada madax maamul goboleed kuraasta ay ku fadhiyaan haddaba tiyoo kale ayaan doonayaa inaan xamar ka sameeyo waana qorshe sharci ah ee ha sheegin cabdiyow aan kuu sii raacshee waxaan rabaa in qaar ka mid ah musharaxiinta aan xabsi geliyo sidii mukhtaar roobow oo kale aan ku sameeyey qaar kalena aan cagaha dhulka ugu dhifto dalkana ay ka cararaan sidii sheekh shaakir iyo sheekh maxamuud oo kale aan uga ceeriyey Soomaaliya kadibna ma waxaan weynayaa musharaxiin marxiis ii noqda sida Cali Maxamed Geedi iyo Axmed Shariif Falagle oo marxiis u soo noqday qoorqoor sidaa ayaana la igu soo dooranayaa oo 4 sano oo kale ayaan sii fadhinayaa filla Soomaaliya aniga iyo mataankayga Fahad Yaasiin farmaajo qorshahan kuu qarsoon ee aad ii sheegtay ee aad ku tilmaantay inuu sir yahay aan kula taliya ka noqo kullay taladayda kuma muuqatee midda Fahad Yaasiin baa kuu muuqata haddii aadan ka noqonayn waa markii lagu yaabi lahaa oo waa tii la yidhi geelow geed walba daaqdaye markaad ciin daaqda ayaa lagu yaabaa hadda waa markii lagu yaabi lahaa madaxweyne farmaajo aan kula sii dardaarma kuna sii sagootiye haddii taladaadu sidaas tahay ma tihid siyaasi aragti leh ee waxaad tahay in duul balaayo ay iska hoggaansanayaan oo aysan waxba u diyaarsanayn lagaana adkaa oo 4 sanoo kale hay haata ayay kaa tahay inaad sii joogtid filla Soomaaliya ee albaabka isaga bax hana isharraxin oo ha noqon madaxweynihii ugu horreeyey
ee xilliga labaad ee doorashada ku soo hara wareegga koowaad xusuusnow madaxweyne farmaajow in taageero laguu haayo iyo in lagaa maarmi waayo awgeed aanan dib lagugu soo dooranaynin waxaanse warkayga ku soo xirayaa farriin uu igu kaa soo dhiibay abwaan maxamed sahal cabdi cumar wuxuuna mulkaagu dhuxul mudsa iyo sibir dhan weeyaane waa dhagaxlaqoo kale waxaad ina dhahaysay dhunkal weeye iyo kiimika oo dhunta mari waaye kanenigii dhilmayadu kalu soo dhadhamayaaye hadhawaysaninoo haysjeclayn dhoonshuura ka ahi dhabarkaa iska saarane dhigwa naga dhaxaysay kuna dhiiban mayne ka samir ha isdhegoolayn